Kulati wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena xigashada wararka. Fadlan hadaad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka furo si aad u ogaato xogta iyo macluumaadka iyo wararka iyo warbixinada halkan idiin soo gelino. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in gaari walxaha qarxa lagu soo rakibay oo uu qof miidama ahi waday lagu qarxiyay Afgooye oo qiyaasii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho. Wararku waxay tibaaxeen in weerarka lala beegsaday injineero Turki ah iyo askar booliska ka tirsan oo ilaalinaysay. Ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dhaawacay oo 4 ka mid ah ay yihiin Turkish. Baabuur miidama ah oo xawli badan u socday ayaa galay goob injineero Turki ah iyo askar booliska ciidanka Soomaaliya ay ka tirsan ay ka qadaynayeen, ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliska oo la yiraahdo Nuur Cali oo ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay. Ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ururka Al-Shabaab ay jimcihii inay weeraraan Afgooye, hase yeeshee la caabiyay. Kooxdaas ayaa had iyo goor weeraro ka fuliya gudaha Soomaaliya iyo dalka ay deriska yihiin ee Kenya. Wixii warar ee dheeraad ah ka soo kordha boggan ayaan idinku soo gudbin doonaa. Fadlan subscribe noo saar si aanay ku dhaafin macluumaadku.